عبد القادر جيلاني الله ونحرسته شيخ عالم الرباني يبوها انت انو ان ka aqaano isagoo yar agoon buu ahaa hooyadii baa korsatay dadna markaa bay lacag fiican intay jeebada ugu riday safar magaalada u socda bay ku dartay ku tiri orodoo magaalada gal oo masaajida gal oo cilm alxalaqaadka culimada cilmiga baraysa orodoo cilmiga culimada ka soo baro safarka raac bay ku tiri safarkii uu la socday ayaa niman mooriyaana ayaa dhexda u galay baa la yidhi waa habeen madow oo gurcuda dadkii markay arkeen tuugtii inay gacanta ugu dhaceen qof walba wuxuu haystay buu markaa qarsanayaa yarkii yaraa ninkii u horreeyay tuugay qabtay baa weydiiyo ku yidhi waryaa wiilkan yaroo adigu maxaad wadataa waxa lii wuxuu lacag watay buu bannaanka soo dhigu sheegay baa la yidhi markaasuu yaabay lacag intaa leeg baad wadataa ha aaway waaba tan uu ka qaaday uu ka naxay markaa wuxuu maxaad ka dhigaysaa lacagtan hooyadayba ay soo siiso magaaladaan u socdaa waxaan u socdaa طالب العلم baan ahay cilmiga inaan soo barto ayaan doonayaa lacagtana markaa waa masaariiftan cunayay weeyaan inta oo sanadood markaa buu adeer maxaad iskaga sheegtay buu maxaad u sheegtay mad qarsatidaa buu ku yiri dadku waa ku wada qarsanayee wuxuu hooyadayba igu tiri waliga been ha sheegin hadaad beenalow aad noqotaa ilaahayna uu ku nicib binaadamkuna way ku nacayaan ajiib gacanta intuu qabtay ayuu u geeyay baa leeyay ninkii dhanaaye tuugta ugu sareeyay bal ilmaha yar wuxuu leeyahay dhageyso lacagta inta laagna u wataa oo muxuu yiri lacagta inta laag buu wataa uu sheegay maxaad u sheegtay baa ku niri wuxuu yiri hooyay igu tiri been ha sheegin hadaad been la noqotaa dadkuna way ku nacayaan ilaahayna uu ku nici waana run been alaha ilaahay baa nacab been alaha dadko dhan baa nacab iska daa muslimiinta been alaha gaalada nacab inkii tuugta ugu weynaa uu ooyay baa leeyahay sida ilmo yarba u baroortay markaas lagu soo ururay maxaad la ooyday wuxuu yiri hooyaday haday asaga hooyadii kala la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yiri ee aniga tarbiyadii hore iga xumaatay waxa halka aan ka fahmayaa yarka hooyadii waa murabbiyad ilmaha yar hadalkii hooyadii buu fuliyay wuxuu hayso dhabo banaanka inoo keenay inaguna amarkii ilaahay intoo jabinay oo tuug noqono umada aan dhacayno ayaan halka u fadhinaaye waxa iga ballana maanta laga bilaabo ciidanba dhici maayo yarka lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya anaguna masaydkan galay waan toobadkeena salaamo buu halkii buu kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyada hooyadu waxbay badishay ogow hooyoy hadaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeena weeyaan haday noo hagaagaan ubadku waxa ka dhigan tahay dalka ay noo hagaagay haday dumarku inaga baanaadaan haweenku ay baanaadaan waxa ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday dadna ilmuhuna uu xumaani ilmuhu haduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabay ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadeeda muslimada waxaan nafteedana ugu nasteexayn inakana inagu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqono dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas-uuliyad baa saaran haweenkana mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa bannaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa waa aqalka fadhiga maxaa loo fadhinayaa xikmadda dumarku aqalka u fadhinayaan waa tarbiyadda awlaadda ugu horreysay ogow oo cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray awlaadda tarbiyadooda markuu ka hadlaayo 7 sano u horeysa ilmaha wuxuu oran jiray la ciyaara 7 ku xigtana buu oran jiray tarbiyadeeyo waxbaro edbiya 7 ku xigtana buu oran jiray ilmihiina la saaxiiba 22 jir ilmuhu markuu gaadhana xarigiisa qoorta u suro magaalada gali buu hadee toolad magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyada hoose uu soo maray ilmuhu 7 hore waa la ciyaara sidee loo la ciyaaraya waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha la fadhiisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo bataabihi
waad u jeedaayo ubadkii aabbuhu cilaaqa ma leh waxaa laga yaabaa culayska inta u badan maanta aqalada hooyada ayuu ku dhacay tarbiyadda hooyaduna ma daboolayso ma dhammaystirmayso ilaahay labada qof isagaas ku dheeli tiray hooyada sifada u badan ay leedahay waa naxariis weeyaan aabbahana shiddo ayaa lagu yaqaanaa ad adayg labadaa markaa waa laysku dheeli tiray waa abibakar iyo cumar oo kale weeyaan abuubakarna nin naxariis badan buu ahaayoo jilicsan cumar binu khadaabna nin adag buu ahaa oo wax kale kuma adkayne ilaahay sharcigiisa ku adkaayo qofka hor yimaada cumar binu khadaab baahidiisa uma sheegan karaynba waa labada sifee markaa loo baahan yahay sifada hooyadana waa loo baahan yahay naxariista sifada aabbahana waa loo baahan yahay oo ciyaalka inta u badan agoommaha u fiirsada tarbiyadoodu dhinac bay u badataa dhinac hadday hooyo ka dhimatana dhinac bay u bataa hadduu aabba ka dhintana oo hooyo ku ag hadhaanna tarbiyadoodu dhinac bay u badataa lidaalika labada qof waa isku dheeli tiran yihiine aabbahuna waa inuu ciyaalkiisa waqti uu ku bixiyaa uu ku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan